golaha wakiilada madaxweynaha golaha xukuumadda iyo dhammaan marti sharafka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudar madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wajiga dhabta ah xukuumadda hogaamisaana waxa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay muddaxileedkaaga waxaa 9kaas bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dawladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyay masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed madaxweyne maadaama adiga khilaafka adiga madaxweyne ku-xigeenkaagu uu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadku niyad xumi ku sii abuuray soo in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska banaysaan si aynu u badbaadino bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad u mahadsantahay mudanayaal waxa weeye idinkoo sharfan madaxweynuhu waa madaxweynihiinii su-aalaha aad weydiinaysaana ha ahaadeen su-aalo hufan oo sharfan oo aan personal attackna lahayn dalka iyo dadka maslaxadiisana ah saasaan codsanayaa please insha allah bismillaahi raxmaani raxiim waa koobaynaa labada su'aalood baan doon doonaa insha allah mudanayaal iska bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim waan u mahad celinayaa xildhibaanka hadlay waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajandaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajandaha inuu ku socdo weeye laakiin dooddu inaa halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanahay bulshadii xooggeedii joogtay labeenteedii xaqiiqda marka loo hadlo dadka dalka xogtiisa ka haya maaha baarlamaanka oo keliya dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer Puntland oo dhan markaan xilka qabanay meeshuu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno maaha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas'uuliyiin oo halka fadhida inay Boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darro darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisa laga rabaa kow labo waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba 99 marka laga reebo magaalo Yubba iyo in yar oo la mid ah gacanta Puntland soo gashay muddadii aan xilka haynay waxaa maanta la jooga oo wasaaradihii dawladda oo dhan joogaan magaalada Buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dawladda oo maqnay waxaa la sameeyay 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guuleystay degaankooda in si daahfuran loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbedel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii Puntland dhinaca dhaqaalaha 7 bilood 8 bilood aan joognay mushaharkaan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan caddaynayaa inaan isu taagnay waxaan caddaynayaa inaan is-hortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano far ku tirisa inay dawladda maamulkeed ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determine ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ka jawaab madaxweynuhu meel kale maraya hadalka madaxweynaha weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu aadimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayay mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo
waxaan rajaynayaa shacabka puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socno waxaan leenahay mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumaddana annagaa mas-uulga madaxweynahana u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin fadhiista fadhiista hala fadhiisto hala fadhiisto fadhiista fadhiista